waxa uu ahaa sheekh ka tirsan culimada xeerta waxa uu si fiican ugu luuqeyn jiray nabi ammaanka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee caan ayuu ka ahaa culimada xeerta dhexdeeda gaar ahaan culimada degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya 3 sano kadib waxa uu soo hayaamay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland كوركين مراحستو أنيقنا رؤيا سوجي كراديو من إلي ردر ذا نور كله رؤيا ذا نسر بقعدن oo ah hoygii fanka Soomaalida waa sheekh xaafida oo xafisan Quraanka Kariimka waxa uu aaminsan yahay in fanku aanu xaraan ahayn sida ay qabaan culimada xeertu isbuucii la soo dhaafay ayuu ka degay garoonka Aadan Cadde ee caasimadda Muqdisho waxa halkaasi ku soo dhaweeyay fanaaniin iyo culimada xeerta ee degmada Yaaqshiid waa fanaan cod halaasiye leh kana dhex muuqday kooxdii uu ka tirsanaa magaalada Hargeysa waxa aad u jecel gudoomiyaha kooxdiisa Abwaandaha Gaas Ismaaciil Arka waxa uu ku jiraa 10 fanaan ee labadii sano u dambeysay aad loo jeclaaday heesihiisa Ismaaciil Arka waa kaftama hadalka helaa waa fanaan hadba la mid noqda bogcadda uu ku nool yahay Ismaaciil Arka xidigan ka soo dhex baxay Hargeysa waxa uu tartan kula jiraa fanaaniin badan oo kula nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland daawade nala yar daawo markii uu ka tirsanaa xeerta degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho sida uu nabi ammaanka ugu luuqeyn jiray كوركين مراحستو أنيقنا رؤيا سوجي كراديو من إلي ردر ذا نور كله رؤيا ذا نسر روح لا تقو وبضبط وبالغدلا القوة هذيك دمي دايو القوة هذيك دمي دايو طبعا كذا عندي حني قحو دم صديقي إيجو كادنتا إيجو كادنتا حليمة حجيبي هيستين هي هي هذا وبحي قدر بيري دذالك أذا سميي نعبكي هذي قادو خيينا قولنا ومودي هذا وبحي قدر بيري دذالك أذا سميي نعبكي هذي قادو خيينا قولنا ومودي روح لا تقو وبضبط وبالغدلا القوة